وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك وحنهاي وهديك دوسيدا وحنهاي وانا معلمك واجي بريبا او بحلقا ورابشو واجي بريبا او بحلقا ورابشو وحنكو ورورينا ودنكينا وحبرتا ودنكينا وحبرتا وحنبار واجبكيس وحنبار واجبكيسا وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو وهسن مينو وابن مينو وروريقي مينو ويعن مينو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومركل إيه برنامج كيني كبر هودا أتكلس عن شرتين تيفيق قرنك سومالي الآن إذاعة راديو هرقيسة وأنا جواه معلمة سمسم إسماعيل عبدي إذا نرجع مادة بيولوجيا 10 كانوا ما أنت رجعنا ما فصل كانوا رجعنا وفون تيرم ككوات chapter كانوا رجعنا أنا chapter كلابات lesson كانوا رجعنا و10 كاني سيدات page كبوقة تجلس عن نسانا وpage كصوتون أما تيدي casharkeenu aynu ku soo jirnay xiisadihii hore sidaynu la wada soconay waxa uu ahaa introduction to green planties waxaynu hordhax ka qaadanaynaa waxa loo yaqaan green plantieska waxaynu soo sheegnay geedka in loo qaybiyo laba qaybood oo waaweyn guud ahaan qayb loo yaqaano root system oo ah dhulka inta ka hooseysa ama xididada shaqadeeduna ay tahay inay geedka dhulka ku xajiyaan inay soo absorb gareeyaan biyaha iyo macdanta sidoo kale waxaynu soo sheegnay qaybta labaad in loo yaqaan shoot system inay ka kooban tahay jirida oo shaqadeedu tahay inay qaado biyaha iyo macdanta ay soo absorb gareeyeen xididadu gaarsiisa caleemaha laamaha iyo faraawilka iyo fruitiska waxaanu soo sheegnay inay kamid tahay waxa loo yaqaan shootka waxa loo yaqaan brancheska oo ah laamaha waxa kamid ah waxa loo yaqaan leafiska oo ah caleemaha oo iyagana shaqadoodu ay tahay meesha uu photosynthesisku ka dhaco ama dhirta loogu sameeyo cuntadeeda sidoo kale waxaanu soo aragnay qaybta loo yaqaan shoot systemka inay ka kooban tahay ama ay kamid yihiin waxyaabaha loo yaqaan faraawilska faraawilkana waa qaybta taranka ee geedka sidaa daraadeed waxaanu soo sheegnay labada qaybood ee aadka u muhiimka ah in geedka loo kala qaybiyo mid walbana functionkiisa aynu aragnay ama aynu la soconay waxaanu soo sheegnay xiisadii hore leafisku inay yihiin meesha ka dhacaan photosynthesisku dhirta qaarkeed inay ku kaydiyaan caleemahooda cuntada sida waxa loo yaqaan basasha oo kale waxaanu soo aragnay structure-ka iyo qaabka ay leedahay caleentu shaqada ay caleentu qabato aynu soo aragnay sidoo kale waxa ka dhaca gaseous exchange-ka waxa ka baxa oxygen ayaa waxaanu ka baxa caleenta carbon dioxide way soo gashaa waxa isku weydaarta gaasiska shaqadeeda saddexaad waxa ka dhaca transpiration-ka sidoo kale waxaanu soo aragnay shaqada ay noo qabtaan xididadu xidid ay u qabtaan dhirta xididadu shaqooyinka qabtaan waxa kamid ah inay soo absorb gareeyaan biyaha iyo macdanta oo ay soo nuugaan kana soo nuugaan dhulka hoostiisa waayahay waxaanu soo aragnay waxa loo yaqaano habka uu geedku ku soo nuugo ama ay dhirtu ku soo nuugto biyuhu inuu yahay processka loo yaqaano osmosis waxaanu soo aragnay waxa loo yaqaan transpiration waxaanu ku soo sheegnay inuu yahay processka ay dhirtu ku lumiso biyaheeda iyagoo biyahaas ugu baxay evaporation gelayna atmosphere-ka ama deegaanka ama gibilka inagu xeersan gelaya biyuhu waxay ka baxaan baynu little holes colored stomata daldaloolo yaryar oo loo yaqaano stomata kuna yaala lower side of the leaves caleenta qaybteeda hoose ayay ku yaalaan waxaanu soo aragnay 4 qaybood oo saameeya waxa loo yaqaan transpirationka qaybaha saameeya waxa kamid ah dabaysha waxaanu maalmahay dabayshu dhacayso biyo fara badan baa ka luma geedka ama caleemaha ka baxa humidity oo ah huurka dry air can hold much more water
than airwet maalmaha huurka yani maalmaha ay dabayshu tahay ama hawada iyo jawigu yahay mid qalalan iyo marka uu yahay mid qoyan biyaha baxaya waxa ay badan yihiin marka ay humidity-gu ama waqtigu yahay mid qalalan temperature-ka aynu soo sheegnay temperature-ku haddii uu kululaado ama uu noqdo warmer geedka waxa uu lumiyaa biyo fara badan time of day maalintiina geedka waxa ka baxa biyo sababtoo ah maalintii ayuu furan yahay istomaatuhu habeenkii wax biyo ay kama baxaan sababta oo ah habeenkii wuu xidhan yahay waxa loo yaqaano istomaatuhu waxaynu baranaynaa cashirkeena maanta waxa loo yaqaano nutrition and photosynthesis ama waxaynu baranaynaa photosynthesiska waxaynu isweydiinaynaa marka hore waa maxay photosynthesis sidaynu wada naqaano photosynthesisku waa habka maxay ahayd ama processka dhirta u samaysato cuntadeeda ayaa waxa loo yaqaanaa photosynthesis plants make their food from non-living things dhirtu waxa ay samaysataa cuntadeeda iyada oo ka samaysanaysa non-living things waxyaabo ma noolo ah waxayna dhirtu waxay samaysataa cuntadeeda iyada oo ka samaysanaysa waxyaabo non-living things ama ma noolo ah by process called photosynthesis waxaanay ku samaysataa hab loo yaqaano photosynthesis waxay ku samaysataa hab loo yaqaano photosynthesis haddaba dhirtu markay samaysanayso cuntadeeda maxay u baahanta waxaynu naqaanaa markastoo cunto la samaynayo waxaa loo baahan yahay raw material ama wax la isticmaalo the raw material used raw materialka ay isticmaasho dhirtu markay samaysanayso cuntada waxaa ka mid a waxa loo yaqaana carbon dioxide-ka oo carbon dioxide xagu ka imanaya wuxuu ka imanaya from the air waa carbon dioxide from the air carbon dioxide oo ka imanaya hawada water from the soil biyaha oo ka imanaya carrada oo ay soo absorb gareynayaan xididadu sidaynu hore u soo aragnay these are combined kuwaasaa isku taga waa biyihii carbon dioxide iyo wixii kale deetana to make sugar waxay sameeyaan sugar ama sonkor loo yaqaano glucose and starch waxaa loo yaqaanaa glucose iyo starch baa loo yaqaanaa productiga ka soo baxa productiga ka soo baxa waxa loo yaqaana photosynthesiska waayahay photosynthesisku waa processka by which plant transform light energy into chemical energy waxa loo yaqaano photosynthesisku waa habka iyo processka by which plant ay dhirtu transform light energy ku bedesho tamarta ama light energy-ga iyadoo u bedelaysa into chemical energy jirowina photosynthesis xilliga uu dhacayo photosynthesisku waxaanu soo sheegnay dhirtu waxay samaysataa cuntadeeda waxay ka samaysataa non-living things waxyaabo aan noolayn processka waxa loo yaqaanaa baynu nidhi photosynthesis raw materialka ay isticmaasho dhirtu markay samaysanayso photosynthesisku dhacayo waxaa ka mid a carbon dioxide oo ka imanaya hawada iyo water from the soil biyo ka imanaya carrada ama dhulka hoostiisa laga soo absorb garaynayo oo ay soo nuugayaan xididadu kuwaasoo isku tegay baa waxay sameeyaan baa la yidhi glucose ama starch haddaba photosynthesisku waa processka loogu bedelo light energy-ga into chemical energy waxaynu wada naqaanaa ama caan ah photosynthesisku markuu dhacayo waxa loo baahan yahay light energy ka imanaya from the sun ilayska qoraxda ee ka yimid cadceeda ayaa waxa loo bedelayaa into chemical energy xilliga uu dhacayo waxa loo yaqaano photosynthesisku sidoo kale use light energy from the sun wuxuu isticmaalaa light energy ama tamarta ilayska cadceeda ee ka imanaysa qoraxda the chemical chlorophyll traps waxa loo yaqaano chlorophyllka ama cagaariyaha ayaa waxa uu soo dabaa this energy tamartan ilayska cadceeda waxa soo absorb gareeya oo geedka si directly u soo geliyo ka soo geliya caleenta waxa loo yaqaano chlorophyll contains chloroplast chlorophyllku wuxuu ka kooban yahay waxa loo yaqaano chloroplastiga oo ah cagaariyaha ahna shayga ugu wacan kalarka cagaaran ee ay leeyihiin leafiska geedka ama caleemuhu waayahay photosynthesis sidoo kale waa important to living things waxa uu muhiim u yahay noolaha living organismska ayuu muhiim u yahay marka laga yimaado dhirta because of sababtu waxa weeye it is the number 1 waa shayga kaliya ama waa shayga ugu muhiimsan ee soo saara source of oxygen into atmosphere oxygen-ta ku sii daaya atmosphere-ka halka markaynu marayno waxaynu hore u soo sheegnay dhirtu marka ay samaysanayso cuntada inay u baahan tahay waxa loo yaqaan carbon dioxide markay dhirtu isticmaasho waxay sii daysaa khashinka ka baxa geedka waa oxygen inaga u baahan waxa u baahan noolaha kale ama living thingska kale deetana living organisms waxay ka helayaan processka dhacay ee photosynthesiska noolaha aan dhirta ahayn ee ay kamid yihiin noolaha kale ama bilaadanku waxa ugu jirta faa'iidadaasina waxa weeye waa halka ugu muhiimsan ee uu ka soo baxo waxa loo yaqaan oxygen-ta ku jirta atmosphere-ka oxygen is a product of photosynthesis
oxygentu waxay ka mid tahay productiska ama waxyaabaha sida khashinka loo sii daayo ee ka baxa waxa loo yaqaan photosynthesiska. Oxygen is needed by other living things. Oxygentu waxa u baahan noolaha kale ayaa u baahan. Leaves waxa loo yaqaano waxa weeye waa food factories. Waxaan oran karnaa caleemuhu waa meesha soo saarta ama waa warshada soo saarta dhirta ee u soo cuntada aan idhaahday cafwan waa warshada soo saarta cuntada ee u soo saarta dhirta. This where photosynthesis takes place. Waana halka uu photosynthesisku ka dhaco. Waxaanu sheegnay ardayo waxa loo yaqaan caleemuhu inay yihiin food factories. Waa warshada soo saarta cuntada ay isticmaasho dhirtu meeshaas oo ah halka photosynthesisku uu ka dhaco. Waa caleemaha sayna hore soo sheegnay. Leaves are well adapted. Caleemuhu waxay si wanaagsan ula qabsadeen for their job shaqadooda ay la qabsadeen. Sababta ay ula qabsadeen waa maxay? Waa their broad flat tin shape provide large surface area. Caleentu waxay u samaysan tahay ama waxay u diyaarsan tahay inuu ka dhaco photosynthesis sababta oo ah waa shay ballaaran xagga structure-ka si ay ugu dhacaan ilayska cadceedu si toos ah. Sidoo kale qaradeedu way yartahay. Qaradeedu waa maxay? Way yartahay. Large surface area-na way leedahay. Large surface area-daas faa'iidooyinka uu leedahay waxa weeye waxay soo absorb gareynaysaa carbon dioxide-ka ku jira atmosphere-ka iyo sunlight-ka. deetana qarada ama ballaarka iyo large surface area-daasi waxay faa'iido u leedahay ama caleentu waxa uu la qabsatay shaqada ay hayso. Carbon dioxide-ka soo absorb gareynaysaa sidoo kale ilayskii cadceedda ayaa si toos ah ugu dhacaya. Labada hadii la helo waxay ka mid yihiin raw material-ka uu si toos ah ugu dhacayo waxa loo yaqaan cuntadu. waayahay image-ka inoo muuqda ama jantuska inoo muuqda waa geedka waxaanu eegaynaa waxa dhacaya photosynthesisku markuu dhacayo raw materials baa loo baahan yahay sida aynu hore u soo sheegnay. Sidoo kale product baa ka baxaya marka uu dhaco photosynthesisku. Aynu ka bilowno xagga hoose ee dhinaca bidix waa xididada. Waxay noo muuqdo waterku geedka waxay ka galayaan xididada. Biyuhu geedka waxay ka galayaan xididada. Xididadu waxay soo absorb gareynayaan waxa loo yaqaano waterka. Deeta biyihii waxay galeen geedka waxa qaaday jirida. Sidoo kale wuxuu geedkii haystaa waxa loo yaqaan chloroplast. Chloroplastigu waa midabka cagaaran ama waa cagaariyaha ku jira caleenta. Cagaariyahaasi faa'iido wuxuu u leeyahay caleenta wuxuu soo dabaa ilayska cadceedda. Waxaynu haynaa waterkii, waxaynu haynaa chloroplast oo ah cagaariyihii, waxaynu haynaa carbon dioxide-kii oo caleenta ka galaya caleenta galaya light energy from the sun. Ilayskii qorraxda ama light energy-gii oo iyaduna ku dhacaysa caleenta. Halkan dhinacayna bidix saddex shay baa inoo yaala waa light energy from the sun, chloroplast iyo carbon dioxide. Saddexdaasba waxa galeen ama ay ka dhex gudbayaan waxa loo yaqaan leaveska. Waterkiina waynu haysanaa. Dhinaca midig waxa ka baxaya productigii. Marka la helo ilayska cadceedda, chloroplastiga, carbon dioxide iyo waterka waxa halka ka dhacaya waa photosynthesis. Photosynthesisku markuu soo dhaco waxa soo baxaya productigii dhinaca midig bay noogu soo baxeen waa oxygen iyo sugars. waa cuntadii geedku isticmaali lahaa iyo maxay oxygen iyo waxa halka inooga soo baxay waxa loo yaqaano sugars. aynu xagan soo yar eegno waxaanu raw materials-ka loo baahan yahay waxa kamida light energy waxa kamida waxa loo yaqaano light energy waa qodobkeena koowaad. waxa kamida carbon dioxide waayahay waxa kamida waxa loo yaqaano water waa qodobkeena saddexaad. ka afraad waxa weeyaan waxa loo yaqaano chloroplastiga. inta markay dhirtu hesho halka waxa ka dhacaya photosynthesisku markuu dhaco waxa soo baxaya productiska soo baxaya waa sugars oo ah foodska ay u baahnay dhirtu iyo waxa loo yaqaano carbon dioxide wax oxygen iyo waxa loo yaqaano oxygen. deetana halka waxaynu ka arkaynaa processku marka uu dhacayo in loo baahan yahay afartan shay ee kala ah light energy, carbon dioxide, water iyo chloroplast. inta marka la helo waxa dhacaya waxa loo yaqaano photosynthesis. productska soo baxaan wuxuu noqonayaa sugars plus oxygen. aynu ka sii socono chemistry of photosynthesis. waxaynu eegaynaa chemistry ahaan baynu eegaynaa waxa loo yaqaan photosynthesiska. Photosynthesis baynu maqalnaa had iyo jeer. Photosynthesis is not one simple chemical reaction. Photosynthesisku ma aha falgal kiimikaad oo fudud, but laakiin waa series of complicated reactions. waa reactions taxana ah
oo culus ama adag baynu odhan karnaa. Haddii jeer photosynthesis baa dhacay waxaynu ka soo bilownaa ilaa meelo hoose. Deetana photosynthesiska halkaa waxa laynoogu sheegay inaanu ahayn chemical reaction fudud oo simple ah but series of complicated reactions. Laakiin waa taxane inuu yahay waxaynu ku garanaynaa waxa la soo saarayaa cunto geedku mar walba uu baahan yahay waana reaction adag. Each reaction is controlled by special chemicals. Falgal kasta oo dhaca ama reaction kasta oo dhaca waxa sababa ama waxa maamula special chemicals called enzymes. Waxa sababa chemicals gaara oo loo yaqaano enzymes. Hadda waxaynu eegaynaa photosynthesisku markuu dhacayo equation-ka la qaato. Waxaynu eegaynaa waxa loo yaqaano equation-ka la qaato. Ayaynu xaggan soo yar eega. Equation-kaasi waxa weeye waa carbon dioxide. Equation-ka waxa soo qaadana waa carbon dioxide, waa water, waxa la isticmaalay light absorbed by chlorophyll. Ilayskii qorraxda ama sunlight-kii oo uu soo absorb gareeyay waxa loo yaqaano chlorophyll-ku. Products-ka inoo soo baxay waa glucose plus oxygen. Ina glucose waxaanu ka garanayna halka waxay noo yeelay 6 carbon, 12 hydrogen iyo 6 oxygen. Plus waxa soo baxay oxygen. Inta waxaanu ku aragnaa glucose iyo oxygen waa products-ka soo baxay. Reaction-kiina wuxuu yahay waa carbon dioxide plus water. Loo isticmaalay sunlight ay soo absorb gareeyeen waxa loo yaqaano chlorophyll-ku. Equation ahaan waxa loo yaqaano photosynthesisku waxa uu dhacaa sidan inoo muuqata. Way waxaynu carbon dioxide enters the leaf. Carbon dioxide waxay ka soo gashay caleemaha through the stomata. Stomata xiisadii horeynu soo aragnay. Stomata waa daldaloolo yaryar oo ku yaala lower side of the leaf caleenta xaggeeda hoose. Processkay ku soo galaan carbon dioxide waa by diffusion. Waa habka loo yaqaano diffusion-ka ama faafida. Waxaynu carbon dioxide-ku enters leaf through the stomata. Waxa uu ka soo galaa caleenta meesha loo yaqaano stomataha. Waayahay wuxuu ka soo galaa stomataha isagoo ku soo galaya by diffusion. Habka loo yaqaano diffusion-ka ayuu ku soo galaa. Water is carried to the leaf in the xylem. Biyaha iyaguna soo galay meesha waxa sida ama caleenta waxa soo galiyay xylem-ka. But carbon dioxide and water pass into chloroplast. Haddaba carbon dioxide-ka iyo water-ka labaduba waxay u gudbaan chloroplast-ga where photosynthesis takes place. Halkaas uu ka dhacayo photosynthesis-ku. In the chloroplast, light energy is absorbed by chlorophyll. Markuu chloroplast-guna muxuu sameeynaya wuxuu soo absorb gareynayaa waxa loo yaqaan light energy. Waxaynu carbon dioxide-ku caleenta wuxuu ka soo galaa daldaloolada hoose loo yaqaan stomataha. Process-ku ku soo galaana waa diffusion. Biyuhu waxay ka soo galaan caleenta waxa loo yaqaan xylem-ka. Carbon dioxide-ka iyo water-ka labaduba waxay u gudbaan chloroplast-ga where photosynthesis takes place. Halkaas uu ka dhacayo waxa loo yaqaan photosynthesis-ku. Halkaas uu ka dhacayo waxa loo yaqaan photosynthesis-ku. Light energy absorbed by chlorophyll. Light energy-ga meesha soo galayna waxa soo absorb gareeyay chlorophyll-ka. Halkan waa caleentii sida sawirkuba idinku muuqdo waxa ku dhacay light energy sidoo kale waxa soo galay water iyo carbon dioxide. Products-ka soo baxay sida aynu hore u soo sheegnay waa oxygen iyo glucose. Glucose convert starch for storage. Glucose marka la rabo in dhirta loo kaydiyo cuntadeeda waxa looga dhigaa starch. Waxa looga dhigaa starch. Waayahay waxaynu eegaynaa qaybteena chapter 2.4. Chapter-keena labaad qaybtiisa afraad oo loo yaqaan trisomies. To photosynthesize successfully. Markuu photosynthesis-ku si guul leh oo wanaagsan oo qurux badan u dhamaado, plant must get as much light and water as possible. Dhirtu waa inay heshaa light energy iyo biyo sida ugu suurtagalsan. Waxay markuu photosynthesis-ku u dhamaado si wanaagsan, dhirtu waa inay heshaa light energy and water as possible. Sidoo kale waa inay biyo heshaa oo heshaa sida ugu suurtagalsan. Markuu photosynthesis-ku dhamaado, dhirtu ay heshaa light energy and water, maxaa dhacaya hadaba? Shoot must grow upward the light. Shootisku waxay u korayaan upward the light, dhinaca sare ee xagga light-ka ah. Waxaynu waxa dhacay photosynthesis-kii cuntadii baa geedkii loo soo saaray, sidoo kale geedku wuxuu helay light energy, waxa uu helay water. Inta geedku markuu helo waxa la filayaa shootiska oo ah qaybta dhulka ka sareysa inay korto upward the light xagga sare ee ilayska cadceeda. Markaynu ka wadno waa kor buu geedku koraya, xagga sare ayuu u dheeraanaya. And roots must grow down into the soil.
sidoo kale xididaduna waa inay koraan oo u koraan xagga hoose iyagu dhulka ay hoos u gelayaan carrada ay hoos u sii gelayaan oo hoos bay u sii korayaan to get water si ay u soo helaan biyo. The response hadaba plants respond to variety of stimuli by growing either towards or away from the stimuli. waxay dhirtu waxay samaysaa jawaab celin. jawaab celinta waxay ka samaysaa arrimo fara badan oo koritaan ah oo kaga imanaya inay dhirtu u korto xagga sare ee lightka ama xagga kore inay u dheeraato oo ay jirida geedku dheeraato iyo caleemihiisu iyo inay xagga hoose u dheeraato xididadu hoos u dheeraadaan oo ay dhulka hoostiisa galaan. deetana maxaa la yidhi this growth movement koritaankan hadaba scholar tropisms ayaa waxaa loo yaqaana tropisms. waxaan tropisms ku soo sheegnay waxaa la yidhi geedku waa inuu helaa geedku markuu helay photosynthesis dhammaystiran waa cuntadiibuu helay sidoo kale wuxuu helay light energy waxa uu helay water geedkii waxaa laga filayaa inuu sameeyo koritaan shootisku inuu koraan upward the light xagga sare ee lightka rootiskuna grow down into the soil ayaguna xagga hoose u koraan to get water si ay biyo u soo helaan. hadaba geedku waxa la wuxuu ka jawaab celiyaa arrimo fara badan oo koritaan ah. koritaankaasi waa inay inta sare ee jiridu u korto xagga sare ee lightka ama kor u korto xididaduna ay dhulka hoostiisa sii galaan oo qotadooda sii dheereeyaan. koritaanka uu geedku labada dhinac u korayo aynu isfahanno koritaanka uu geedku u korayo labada dhinac ee geedkana xagga sare u korayso jiridu xididaduna ay dhulka hoos u sii galayaan baa waxa loo yaqaan tropisms. waxa loo yaqaano tropisms. hadaba tropisms are group of plant hormones. waxa tropismsku waxay soo daayaan hormones loo yaqaano axons. axons are produced at the tip of the roots. enzyme-kan ama hormone-kani waxa uu sameeyo waxa uu enzyme-ka lagu sii daayaa tip of the roots xagga sare ee xididada ama xididada xaggooda u hooseysa ee dhulka u xigta aan shootis iyo jirida halkeeda u sareysa ayaa enzyme-kan lagu sii daayaa. hadafka laga leeyahayna waa maxay? waa the effective growth roots and shoots. waa inuu geedku u koro xagga jirida oo u koraysa xagga cirka ama lightka iyo xididada oo u koraya dhulka hoostiisa. waayahay shootisku waxay sameynayaan in logatis salis at the tip. shootiskii dharar bay keenayaan iyagoo u koraya xagga sare ee cirka ama lightka. sidoo kale maxay sameynayaan xididadiina waxay sameynayaan growth down hoos bay iyaguna u korayaan oo dhulka ayay hoos u sii gelayaan. waxaanu nidhi waxa loo yaqaano tropismku waa markay dhirtu hesho photosynthesiskii oo dhammaaday cunto ay hesho biyo ay hesho carbon dioxide maxay hayday waxa dhacaya koritaanka geedku laba dhinac buu u korayaa baynu nidhi waa dhinaca sare oo xagga lightka xigta ama xagga cirka inuu geedku dheeraado sidaynu wada naqaano iyo inay xididadu dhulka hoos u galaan. broseskaasa waxa loo yaqaanaa tropism. sidoo kale waxaanu soo sheegnay in geedka lagu sii daayo hormones. hormoonada in lagaga shubo xagga sare ee jirida halkeeda u sareysa eenu u naqaanay xiisadeennii hore terminal bodies ama apical bodies loo yaqaano ayaa waxa laga soo deynaya enzyme hormones. hormoonadaas waxay keenayaan inuu geedku dheeraado oo xagga sare u dheeraado xagga u hooseysa ee xididada hoostoodana waa lagu shubaya hormoonada. taasina waxay keenaysaa inuu geedku dhulka hoos u galo. koritaanka noocaasa ee geedku dhinaca sarena uu u dheeraaday xagga hoosena uu u dheeraaday ayaa waxa loo yaqaanaa tropism. hadaba waa maxay phototropism? waxa loo yaqaano phototropism waa is a growth movement in a response. waayahay waa koritaanka uu sameeyo ama jawaab celin uu sameeyo geedku isagoo koraya xaguu u koraya to the light xagga sare ee cirka ayuu u koraya. if the plant grows towards the light haddii ay dhirtu u korto xagga sare ee lightka ama jiridooda ay dheeraato waxaa la odhanayaa waa positive response. waxaa la odhanayaa kaasi waa positive response. laakiin haddii koritaanku noqdo away from the light inuu u koro xagga hoose waxaa la odhanayaa waa negative response. waayahay cashirkeennii maanta intaasuu inoogu egyahay. intaynu xiisad lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaan nahay wahdiga dugsiyada waxaan nahay wanada macalinka waxaan nahay wahdiga dugsiyada
waxaan nahay wanada macalinka waagii baryaba awbax laga waraabsho waagii baryaba awbax laga waraabsho waxaan ku warwaraynaa wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajibkiisa wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno weeweecan mayno wahsan mayno waaban mayno warwareegi mayno